kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waa joogtaan iyo si walba maqal aragaya waydiin soo gaaray waxaan ahay xudayfa cabdiraxmaan waxaad daawanaysaan barnaamijkii wacyiga siyaasiga waxaa maanta igu marti ah cabdicasiis cabdulaahi koofiya guduudku magac dheer oo kamid ah siyaasi da-yar aan idhaahday cabdicasiis xasan oo kamid ah siyaasiyiinta da-da yar ee soomaalida ee inta badan dadka siyaasadda iyo waxyaabahaas ka daraaseeya ay aadka u yaqaanaan cabdicasiis soo dhawo marka hore waa mahadsantaha walaalkii xudayfa adiga iyo bahda c n a aad baa ugu mahad celinaya cabdicasiis intaanan barnaamijka su-aalayn waxayna kala gudagelin haddii ugu horeyn aan ku siiyo wax ka yar 2 daqiiqo oo cabdicasiis intuu ku dhashay intuu kusoo barbaaray waxbarashadaadii bal dadka haddii aad isbarto horta introductionkaas horaan dhowr jeer tv-ga uga sameeyey laakiin aniga magacayga cabdicasiis xasan maxamuud baa la yihahdaa waxaan ku dhashay gobolka Mandera County waxaan kusoo barbaaray xaafadda Islii waxbarashadeyda inta badan waa Nairobi muxuu ahaa halkaanaan ku noolaa 20 iyo dhowrkii sano u dambeysay 24 sano u dambeysay 2017 waxaan murashax siyaasadeed xilka xildhibaan ka noqday xaafadan Kamkunji anoo u tartamay xilka xildhibaanka haddana waan rajeynayaa doorashada soo socota 2022 lagana yaabo inay suuragalto inay dib u dhacdo ilaa 2023-2024 murashax kalaan ahay waa taaganahay xilka xildhibaanna waan wali raadinayaa marka waa la heli karaa muxuu ahaa warbixinteeda oo faahfaahsan laakiin halkaas aan ugu gaabsanaya aad baa mahadsan tahay cabdicasiis waxaa tiri waxaan ahaa murashax xildhibaan xisbigee matalaysa waxaan matalaya xisbi la yihahdo FPK Federal Party of Kenya oo isbahaysiga NASA ka tirsanaa 2017 xisbigaasaan ka tirsanaa waagaas ayada laakiin waan iska casilay 2018 dabayaaqadiisi yaan isaga baxay marka hadda wax xisbi oo mutamala waxaa tahay qof iskiisa u taagan hadda weli ma rabo inaan ku degdego xisbi horle inaan ku biiro maadaama xulufaysiga siyaasadda iyo isku aadkii weli ay aad u dhiman tahay marka inaan ka hor dhaco ma rabo xisbi waan kusoo tartami doonaa haduu ilaa yiraahdo haddaysan wax kala dhicin oo inta badan markii xisbiyada waaweyn la rabo in lagu tartamo waxaa dhaco faquuq oo siyaasiyiinta markaas xilka hayo ama dadka lacagta farada badan iyo door yani awood bidaayo kharashka badan bixinayo dadka dhalinyarta ah oo aan runtii awoodooda kale aan lahayn ama saameynta ay leeyihiin oo kale aan lahayn waa laga yaabaa inay faquuq ku sameeyaan oo xisbiga gudihiisa ay tartanka ka adkeeyaan sababta xisbiyada waaweyn waxaa jira wax la yidhaahdo nomination oo israreeb dadka xisbigaas tigidkiisa raba inay ku tartamaan ay loo sameeyo marka faquuqaas hadduusan dhicin oo xisbi fiican aan helo xisbi waan kusoo istaagi doonaa waana dib baana ka shaacin doonaa haddii faquuqaas oo dhacana team Koofi Guduud ayagaaba xisbi iskugu filan marka independent aan ku istaagi doonaa insha allah waxaa jirta in deegaankeena hadda xaafadda Islii aan ku sugannahay ay Soomaali badan ku nooshahay marka laga soo tago inaad tahay siyaasi doonaya xeelka xildhibaannimo xeerar hoosaa jira MCA iyo waxyaaba kala jira maxaa isu bilaawaya MCA xafiiskiisa waa xafiis aad u kooban waaye awood badanna ma laha uu ummadda wax ugu qabto matalaad oo ilaa heer qaran ahna ma samayn karo matalaadiisa waxay ku eg tahay county level oo Nairobi unbuu qofka ku matali karaa baarlamaanka National Assembly-ga ma geli karo qofka MCA-ga ah qasnad oo diyaar u dowladda ay u qoondeysay oo meel u taalo oo masaakiinta uu ka caawin karo iskoolada uu ka dhisi karo jidadka uu ka qurxin karo scholarship ardayda masaakiinta oo tabarta badan haynin uu ka siin kara ma laha xildhibaanka waxaan ugu booday oo aan MCA-ga uga booday waxaa weeye waxaan u baahanay inaan wax qabto xildhibaanka marka waa meesha ugu hooseyso oo wax qabad rasmi ah ummadda looga geysan karo MCA-ga haddii fursadaha xildhibaanka uu leeyahay oo kale hadduu lahaan lahaa definitely waa usoo istaagi lahaa waxaad ku dhalatay Mandera County
maxaa ku diiday Mandera inaad dib ugu laabato countigaaga iska soo sharaxaysay? Mandera dhalashadeeda weeye, laakiin kuma soo korin. Maanta haddaan Mandera taga aniga dariskanaga markii laga reebo wax asxaaban ku leeyahay malaha. Aniga meeshaan ku koro aan dhihi karo homekayga wey Islii waay. Islii aniga waxaa la ii keenay anoo 6 jir 5 jir 6 jir ah. Waagaas ilaa hadda aan ku noolahay. Inta habeen oo Islii banaankeeda aan seexday aaday u yartahay. Waxaan fahansanahay aniga marka waxa aan rabo inaan caawiyo ama aan wax ka qabto waxaa weeye khaladaadka aniga horteyda ka dhacay. Hadda khaladaad badan way ka dhacaan Mandera, laakiin horteyda kamay dhicin. Marka saameynta hadda Islii ay ugu leedahay kale Mandera iguma laha. Aniga marka waxaan dhihi karaa magacayga unba Mandera jira ma ogi, damiirkayga Islii buu yaalaa. Islii waxaa ka soo galay xildhibaan Soomaali ah. Ma jiraan xildhibaano madow ah oo la tartamay? Way jiraan, niman madow oo la tartamay way jiraan. Asagaba markii uu soo galayay nin madow ha ku fadhiyey oo by election buu ku soo galay Yusuf, nin Simon Bugo la yiraahdo iyo by election kula tartamay oo ninkii hadda Allah u naxariistay marxuumkii Axmed Ibrahim Jooni uu maxkamadda geeyay kiiskii 2007 doorashadii kadib oo yiri doorashadan waa la iiga shubtay. By election markuu soo dhiciyay Jooni iyo Yusuf wuxuu ku soo istaagay xisbiga PNU oo la tartamay ninkii meesha ku fadhiyay sidii buuna oga qaaday 2011. Marka yes, madow xaawadu ay ka tartamaan, saameyn weyn way ku leeyihiin, wayna ka cod badan yihiin 70% ay wax ka badan Soomaalida. Nidaamka BBI markaa fiiriso siyaasadda Kenya inta badan shacabka ay ku wareersan yihiin, maxay kula muuqataa? BBI horta siyaasadda sideedaba waa interest iyo dan waaye. BBI siyaasiyiin baa u arkay inay dan ku jirto dadkooda iyo goboladooda. Marka meesha ka taagantahay spectrumka barnaamijka markaa fiirinaysid meesha ka taagantahay ku xiran tahay. Qaarna waa dad badan waxay aaminsan yihiin BBI wadankeena aysan dan ugu jirin oo sababtoo BBI waxyaalaha lagu diidayo oo lagu mucaaradayo waxaa kamid ah wadanka dhaqaalihiisa oo kolka horeba aad u xumaa yaa waxaa lasoo kordhinaya jagooyin hor leh, prime minister iyo ku-xigeenadiisii, muxuu ahaa madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii horey u jiray, wasaaradihii oo laga yaabo in la badiyo, iyo 70 xildhibaan oo hor leh oo la rabo in baarlamaanka lagu soo daro. 70 xildhibaan oo hor leh micnaheedu waxaa weeye 70 degmo oo hor leh in la sameeyo. 70 xildhibaan marka mushaar ay u baahan yihiin, gun ay u baahan yihiin, baabuur iyo security iyo xafiis, wax yani waa culays oo canshuur bixiyayaasha kusoo kordhaya waay. Haddii dhinac kale laga fiiriyana dadka ku doodaya BBI inay faa'iido u tahay dalka waxaa waaye dad badanaa waxaa jiro oo matalaad ku filan aan haysan. Tusaale ahaan Soomaalida oo kale. Annaga hadda xaafadda Islii aniga tiimkayga tiimka Gaduud anoo hogaaminayo yaan 2019 bishii 8 taariikh 2 waxaan warqad u qoray guddiga IEBC oon ka codsaday xaafadda Islii inay ka dhigaan degmo ka madax bannaan Kamkunji inteeda kale. Sababtoo ah Kamkunji waxaa ka codaysay doorashadii hadda u dambeysay 120,000 oo qof oo Soomaali iyo madow iskugu jiray. Soomaalida ka codaysay 20,000 kama badnayn. 100,000 waxay ahaayeen dadan Soomaali ahayn. Taas waxay ku tusaysaa macnaha Soomaalida cod ahaan in looga tira badan yahay xaafadda. That means xildhibaanka Kamkunji ka soo galayo mar walbo wuxuu ku xisaabtamaa codka madowga iyo cadka Soomaalida. Soomaalidana lacag buu ka qaataa uu ku campaign gareeyo oo qaaraan bay u sameeyaan. Business community-gaas garab istaagan oo lacaga uga soo aruuriyo dukaamada iyo ganacsatada. Lacagtaas wuxuu cod kaga gataa madowga oo ku soo xirgeliya. Soomaalida kullina way u codaysaa halka qofka Soomaali ugu cadcad iyo codkooda isugu geysaa. Laakiin codka ugu badan uu ku guuleysto wuxuu ka helaa dad aan Soomaali ahayn dhanka kale. Marka annagoo arrinkaas ka duulayno si
xaafadda islii ay matalaad rasmi u yeelato oo soomaalida runtii oo aad u tiro badan xaafadda codka bixintaa ku yar laakiinse deegaan ahaan aad ay ugu fara badan yihiin 200 kun ku dhawaada lagu qiyaasaa soomaalida hadda islii degan waana meel ayada dhanbo 6 kilomitr ka yar marka 6 kilomitr square ka yar marka annagoo barnaamijkaas ka duuleyno yaan guddiga doorashooyinka warqadaas u qornay aana ka codsanay 70 degmo oo BBI ay soo kordhin doonto oo 12 kamid ah Nairobi loo qoondeeyay in mid nagala siiyo xaafadanadana laga soo jaro xaafadda Kamukunji inteeda kale guddigu noo soo jawaabay uuna noogu hambaliyeeyey la xiriirka aan la xiriirnay rajuna na geliyey mashruucaas iyo mashruucyo kale oo fara badan oo lamid ah sida annaga aan wax u doonayno dad kale u doonaya inay jiraan oo codsiyo soo dirsaday markii waqtiga munaasabka la gaarana la kala shaandhayn doono lana shaacin doono rajo weyn aan ka qabnaa islii inay noqoto xildhibaanka hadda xilka haya Yuusuf Xasan ma la kulantay wax siyaasadaada ku biirisay fikirkaaga Yuusuf lama kulmin oo si shakhsi uma raadinin sababtoo ah imuu dhiirigelinin la kulankeyga muusan dhiirigelinin dhacdo waxaa jirta cajiib ah oo waagii aan tartamaynay aan ka arkay hogaamintiisa aadna iiga niyad jebisay runtii inaan raadiyo ama aan dabagalo waxaan iskugu nimid meel xaflad ah oo runtii lagu dahfuraayey xarun cusub oo xaafadda laga furaayey kolka hore meesha anaa liigu casuumay maadaama murashax nin da'yar oo murashax xaafadda kasoo kacayaan ahaa inaan xariga ka jaro oo official launching aniga aan sameeyo laakiinse maadaama nin xildhibaan oo Soomaaliya uu meesha joogay taleefanaha hoos laga dirdiray casuumaadeydina waxaa la siiyey asaga sidaas oo tahay meesha iskugu nimid meeshuu yuu ka hadlay waxyaalihii uu ku hadlay oo niyad jabiyo waxaa kamid ahaa wuxuu yidhi dhalinyartan yararka ah oo aan khibradda lahayn oo wejiyada qurxan leh oo sida qurxan usoo labistay laakiin khibradna aan haynin aqoon ku filanna aan lahayn aadna u da'da yar iyaysan waqti oo shaqo la'aanta ah ereyga runtii aadka u dhibsaday oo aniga iga niyad jabiyey Yuusuf waxaa weeye dhalinyartan shaqo la'aanta oo iyaysan waqti idinka dhuminin marka kaba soo qaad shaqo la'aan baa baaha markaas ayada kaba soo qaad shaqadiisay ahayd mas-uuliyaddiisay ahayd inaan shaqo helo sababta asaa xildhibaan ii ahaa marka qof jagada uu fadhiyo u isticmaalayo inuu ku niyad jabiyo dhalinyarta la tartamayso asagoo ku liidayo ama dhaqaale xumadooda ama khibrad la'aantooda khibrad sayn ku helayn haddaan xafiiska tegin oo aanan degmada u shaqeynin see lagu helaya khibrad marka Yuusuf Soomaalida ma soo dhaweysto xafiiskiisana Soomaali badan kama shaqeyso hal wiil aan qiyaasaya hal wiil haddaa research ka samaysid noo soo heli doontaa hal wiil yaa ka shaqeeya oo constituency manager u ah waxa kale waa dad aan Soomaali ahayn marka ninka fikirkaas ka haysto qofka dhalinyarka Soomaaliga ah ula jeeda aan ula kulmo ama aan xuuraami ugu sameeyo waan waayey marka tiraaho wuxuu yidhi dhalinyarada wejiyada quruxsan ee da'da yar ee aan lahayn waxbarasho ku filan ee shaqo la'aanta ah adigu ma dabagashay oo ma tiri xildhibaane ereygan maxaa kala jeeda maxaan u leeyahay sababta qof weyn oo wax fahmaya ahay ereygaas iyo hadalkaas iyo meesha publica uu ka sheegay waxay ahayd niyad jabin liid iyo khudbo waa ku lahaa laakiin maadaama nin xildhibaan uu meesha imaanayay khudbadeyda waa la hormariyey protocolka siduu yahay waxaa waaye qofka mas-uulka ah oo markaas meesha joogo inuu soo xiro uu hadalka u dambeeyo marka microfonka asaa u dambeeyey nasiib xumo waana ku qasbanaa inaan protocolka raaco sababtoo ah anigaba maalinta xildhibaanka noqdo protocolkaas inaan maro waan jeclaan lahaa okay intii hadda sidii uu hayay waxay ku dhowdahay 10 sano saan filayo waxqabadka uu sameeyey hambalyo iyo bogaadi ma mudan yahay markaad fiiriso ma mudno sababtoo ah xaafadda islii weli gudaafadii way buuxdaa soo dhalinyarta islii weli proboxiga lagu aruursadaa waa la kala gataa muxuu ahaa waa la istooriyeeyaa weli oo xaafadda amnigeeda 100% gacanta kuma jiro muxuu ahaa
soomaalida ninkan keliya wuxuu u yimaadaa xilliga doorashada uuna codka u baahan yahay markaas keliya soomaalida soo dhex galaa wuxuuna ka bilaabaa masaajidda haddaa si u fiirisana masaajidda asaga u afduuban yihiin siyaasi kaloo soomaaliya looma ogolo inuu khudba ka jeediyo ma aqaana sababtay ku dhacday ma asaga cadaadis saaray wadaadada ma wadaadada asaga jeclaaday fursad ma helaan murashaxiinta kale asaga laakiin asagooba halkaas mar keliyo kambeynka keliya yimaado yaa loo ogolaadaa mimbarka inuu ka khudbeeyo sidii sheekh yuusuf inuu yaho kale waa la xiriiray mar rab magacayaashooda inaan inta ka sheego laakiinse dadka la tuhmi kara inaan la hadli karo waan la hadlay soo dhaweynna kama helin midda aad ka dhawaajisay ee ah weli amni darada ee xaafadda islii ka jirta xaafadda islii waxaa lagu qiyaasaa hadda marka loo fiiriyo sidai ahaan jirtay 100% inay hadda ka fiican tahay amni ahaan marka loo eego islii hadda sidaan ognahay wax dilaa kama dhaxo wax dhacna kama jiro sidii waagii hore ay ka jiri jireen dhalinyaro kooxaadyo ah oo xaafada ama mataqaanaa gurgeysi ah inaysan wixii ka baabaaday oo hadda ka tanaasushay arigaas miyaadan ugu hambaliyeyna laamaha amniga ka shaqeeyey iyo weliba xildhibaanka horta xaafadda waa isla wada joognaa laakiinse inaan kala warbixin haynaa macquul ah xaafadda amnigeeda 100% ma sugno 100% horta wax la sugi kara malaha xaafad muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa la kala gadanayo oo dadkii ay kulligood xanaaqsan yihiin cooperation lama samayn karaan ereyga kala gadasho haddaa jiraysa maxaad kala jeedaa waxaan kala jeedaa laaluush in laga qaato oo qofkii laga yaabo sharcigiisa inuu guriga kusoo iloobay laga yaabo inuusan ba xitaa sharci lahayn proboxyada lagu aruursado oo muxuu ahaa way dhacdaa yani wax oo ma aha in la iiga sheekeeyey ereyga aad ka dhawaajisay ee ah inuu sharci lahayn hadduusan sharci lahayn soo dowladda xaq uma laha inay ka qabato dalka qofkii ashara darro khalad waaye sababtoo ah waddanka wuxuu leeyahay xuduudo eelabooruu leeyahay meelo laga soo galuu leeyahay so meeshaasaa u baahan qofka in lagu qabto ma jirto wax sharciga qoraya ma laha qofka in wadada lagu istaajiyo oo la weydiiyo inuu sharci leeyahay sawd c kama dhacdo sawd b kama dhacdo banganidan noo dhow oo dariskeena kama dhacdo mudaa'iga kama dhacdo parklands kama dhacdo kama dhacdo lavington kama dhacdo karen kama dhacdo way isli oga dhacaysaa qofka waa inuu xishmad leeyahay markuu jidka maraayo haddii qofkan amniga waddankan uu threat ku yahay waxaa la rabay in eelaboorka lagu qabto waxaa la rabay in lagu qabto xuduudaha dhulka oo laga soo galo waxaa la rabay in lagu qabto xuduudaha badda oo laga soo galo meelaha entry pointska oo waddanka laga soo galo yuu askariga ama dowladda ay awood u leedahay ama xaq u leedahay inay ku baarto qofka soo galaya laakiin once qofkaas uu caasimada soo dhex galo sharci malaha markaan ku leeyahay waa qof aan kenyaan ahayn qofka waxaa laga yaabaa alien inuu wato waxaa laga yaabaa baasbor soomaali inuu wato oo visa u saaran tahay maxaa la yidhaahdaa degenaansho laakiinse qofka hadduusan ba ID wadanin oo soomaali yahay waa gowracan yahay xaafaddan isliim markuu joogo qofka baasaboorka wata mataqaana degenaanshaha u saaran yahay ama u saaran yahay viisaha sharciga lagu qabanayo markaad fiiriso askarta ama mataqaana laamaha ammaanka qofka sharcigiisu u dhammaystiran yahay Soomaali inay daayaan waa sida saxda ah saas waay laakiinse islii markaad joogto shuruucda waddanka yaalla kama shaqeeyaan aliyanka ka dhawaajisay waxaa jira upper refugee qoqodaaliyan Nairobi ayaa jira oo qaxootiga la siiyo dadka qaxootiga ay haystaan sidaan ognahay laamaha ammaanka aad bay u ixtiraamaan oo qofka wata kuma xadgudbaan way fiiriyaan hadduusan dhacsaneen waa la siiyaa waa marka lagula joogo yani waa markay public tahay oo dad badan uu ninka askariga arkaayo laakiinse markii luuq lagugu qabto ay mugdi tahay adiga keliga aad tahay sababta communitygan ku dhex noolay aniga oo kuu sheegay 24 sano u dambeysay isliyan ku noolaa adiga goobjooga oo qof wata sharcigiisii aan ka ahayn ID-gii dalka ee ama alien wata ama baasaboor wata oo cidla intii lagu helay ku dhacay koofiya gaduuda waa la haystay iguma halkaas xabsigan ba iskula jirnayba aniga dhowr jeer la xiray intaasoo dhalinyaraha xabsiga ku arkay oo khibrado ka soo qaatay waxyaalihii igu xiranay inta badan waxaa u badnaa maxaad u hadlaysaa waa iga warhaysaa aniga aad waxaan uga soo horjeedaa siyaasadaha Kenya ay ku aadan Soomaaliya marka Jubbaland yaan aad u mucaaradaa
kenyana waxay saaxiib la tahay jubbaland xabsi baan ku mutaystay dhowr jeer jubbaland maxaa ku mucaaraday yaanan ka bixin qodobka hore waxaan marka ku mutaystay xabsi dhowr jeer xabsiyada waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan oo runtii rag gabdho iyo wiilalba iskugu jiro bangani dheh mudaiga dheh maxaa la yidhaahdaa meesha ATPU-da meeshan upper hill dheh xataa meeshan la yidhaahdo xabsigan weyn oo industrial area dheh name it buruburu police station meeshan la yidhaahdo kulli adaa intaasba aniga waa ligu xiray inta badanna waxay ahayd hal mar oo aan muxuu ahaa xilli dambe socday oo 5 saac habeenimo meelahaas anoo gurigay u hoyanayo dadkii la qabanaya igu dareen way jirtay laakiinse mar walbo oo la qabto khibrad hor leh yaan ka faa'iidayay waana ku soo bartay Soomaali fara badan oo xabsiyadaas ku jiro qaar baasaboor leh qaar xitaa baasaboorro aan Soomaali ahayn leh oo qurba joog kale oo qurbaha ka timid ah oo runtii si sharci darra loo haysto oo muxuu ahaa lama ogola qofka police station inuu ku xirnaado 24 saacadood ka badan asagoo maxkamadda la geynin waxaan ku arkay police stationada dad 10 maalmood ku jiro isbuuc ku jiro intaasna la sugaayo qof u yimaada oo baxsada marka qof walbo Soomaali isla joogana wuu fahansan yahay inaad xabsi markaad gasho laga soo bixiyo wadada aad u marayso waxaa tiri dhowr magaalo la xiray sababaha lagu xiray waxaa sheegtay maamul ka mid ah maamulada Soomaaliya mucaarad ku ah oo aad uga soo horjeeday siyaasad ahaan marka loo fiiriyo markaad fiiriso maamulkaasi Soomaaliya inkastoo Soomaaliya aad tahay jinsiyan laakiin dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaalida ee xilka ka doonaya Soomaaliya u taala adiga Kenya xilka rabtaa maxaa keenay marka inaad halkaas mucaarad ka noqoto aniga niyahow waxaan ahay Soomaali Kenyan qofba meesha uu fikirkiisa ka joogo iyo qadiyadiisa ayaa lagu cabiraa aniga waxaan aaminsanahay inaan Soomaali ahay intaanan Kenyan noqon karo marka aniga Soomaali Kenyan baa ahay Soomaali Kenyan haddaan ahay automatically waxaan xiriir la yeelanayaa Soomaaliya ninka la yiraahdo Axmed Madoobe meesha uu maamulo oo Jubbaland wuxuu ka geystaa tacadiyo badan gobolka Gedaha ugu badnaadeeno gobolka Gedana wuxuu daris leeyahay Mandera County adoon meel fog ka raadinin tii u dambeysay haddaan kaaga soo qabto ninkii Janan la yiraahdo hadda dawladda isku dhiibay hurdada u diiday reer Manderana hurdada u diiday oo aniga meeshan ku dhashay wuxuu hurdada u diiday dariskanagii aan isku fiicneen oo reer Beled Xaawo iyo hurdada u diiday muxuu ahaa wax horumar ah iyo isbitaal MCH baa ugu yar qofka siyaasiga oo xilka uu Axmed Madoobe hayo kala hayo oo madaxweyne maamul goboleed ah ani kama hadlayo xildhibaanka Jubbaland waxba uma raacanayo aniga laakiinse ninka xildhibaan because Jubbaland waan naqaanaa xildhibaanadeeda xataa mushaar ma qaataan ma helaan xitaa wax ma aqaansay ku survive garayaan laakiinse Axmed Madoobe maadaama madaxweynaha Jubbaland uu yahay waxa ugu yar oo la rabay inuu dadkiisa u qabto waxaa weeye MCH xataa waa laga la'yahay war Jubbaland oo dhan iyo meel kasto uu maamulo asaga MCH xataa lagama hayo intaas ka soo tag dadka haddaadan wax u taraynin waxaa fiican inaad waxba u dhiman dadka waxooda ayaga u ogolaatay inay waxooda ceshtaan adiga maamul goboleedyada kale la qaraabo muxuu ahaa dowladda dhexe la qaraabo wixii adiga shakhsi ahaan aad ka soo dhacsanayso maadaama aad diidina wax qabato adiga wax istar kursiga wax isku tar ummaddaana faraha ka qaad ha u diidin harsiga ha u diidin ninkan marka dadkii nala dhashay iyo harsiga u diiday dadka meesha lagu dhigaayo Soomaali waay harsiga u diiday reer Mandera maxay ka galabsadeen hadda Axmed Madoobe waxay ka galabsadeen malaha burcad buu soo dul dejiyey muddo ku dhawaad 1 sano ee lagu kor dagaalamayay dadka shacabka reer Mandera ardaydii baa waxbarashada laga hor istaagay oo amni darro darteed waxbarashada u aadi waayay macallimiin baa ka soo cararay iskooladii ay dhigayeen amni darrada ka jirta magaalada iyo dilalka qorsheysan oo ka dhacayo
marka axmed madoobe hadda inaa i weydiiso horta waxaan ku mucaaradaya nasiib darro waay laakiinse haddayba dhacday axmed madoobe waxaan ku mucaaradaya waxaa weeye hogaamin xumadiisa iyo tayo xumadiisa adiga raalli ah waxaa sheegtay Soomaali Kenyan inaad tahay siyaasi Soomaali Kenyan oo qadiyada Soomaaliya ay ku taabanayso maxaa Jubbaland galay ku tusayo u arki weyday koonfur galbeed Hirshabelle iyo Galmudug oo ayagaba intaasi in ka badan ay ka jiraan oo deegaano badan ay ka maqan yihiin dhibaatooyin badan ay ka jiraan maxaa ku diiday inaad aragto aad u aragto Jubbaland bas waxaan Jubbaland u arkay Hirshabelle iyo Galmudug iyo koonfur galbeed ma jiro dhib maamulkaas ayaga ah ama kuwa hadda jooga ha ahaado ama kuwii ka horreeya ha ahaado dhib ay ayaga wadaan oo ay shacabka ku korhayaan duqaymo ay ayaga ku wadaan ciidamadii ay ayaga lahaayeen oo ay shacabka ku laynayaan ma jirin horumar la-aanta iyo muxuu ahaa waxqabad la-aanta ha ka wada sinaadeen hadday rabaan oo yaysan waa tii hadalka horaan kuu raaciyey qofka haddaadan waxba u taraynin waxba ha u dhimin aniga marka inaa adi ii sheegaysid ma ogi laakiin ani ma arkin madaxweyne Hirshabelle ama kan hadda jooga ha noqdo ama kii ka horreeya ha noqdo oo shacabkiisa gumaadayo ma arkin galmudugna ma arkin madaxweyne xaaf ama madaxweyne qoorqoor oo shacabkiisa gumaadayo oo shacabka ay ka cabaadayaan ma arkin shariif sakiin madaxweynihii hore ee koonfur galbeed iyo ninka la lafta garano hadda ku fadhiyo ayagoo shacabkooda ay ka cabaadayaan ay leeyihiin wayna dilay wuuna xiray wuuna barakiciyey gaajo nagu dilay ayagoo dhahay horumar la-aanta waddanka dhan ay ka jirtaa waddanka yani awood badan kama jirto wax lagu horumariyo inkastoo koonfur galbeed hadda progress fiican ay sameynayso oo eelaboorre ay dhisanayaan oo muxuu ahaa mashaariic isbitaallo la furay aan arkaynay ay wax socdaan markii loo fiiriyo Jubbaland wax ka socdo ilaahay unta ma laha Jubbaland way weyn tahay gobolka Gedo kali maaha waxay leedahay Jubbada Dhexe waxay leedahay Jubbada Hoose walow Jubbada Dhexe inta badan gacan ka maqan oo shaqo ay maamulaan Jubbada Hoose jirto oo Afmadow Dowley Ismaaciil kulli ay kala soo maamulka Jubbaland dhibaatada gadag ay sata ama shacabka gadag dhibaatadooda kaliya mudane Cabdi Casiis inaad aragto tan Afmadow Dowley Ismaaciil ka jirta arki weyn maxaa u qaadanaa horta shacabka Jubbaland kulligood way dulman yihiin adiga ka wariye ahaan uma arka inay ku qurxan tahay inaad sawir ka bixiso reegada bas inay yihiin dadka diidan Axmed Madoobe Jubbaland oo dhan diidan bas adiga waxaad ka hadashay gado oo kaliya waxaan gado uga hadlaa waxay tahay gado waxay daris la tahay Mandera anigana Mandera aan ku dhashay kana soo jeeda waxaa itaabanayo dagaalada lagu korgalayo shacabka reer Mandera iyo walaalahooda dariska la ah balad xasabta balad xaawo iyo Mandera hadii aad ku nool adaad ama warbixin fiican haysatid ama aad mar booqatay waxa arki kartaa laba magaalo mataana inay yihiin cusbada iyo dabkay kala qaataan Mandera iyo balad xaawo dad aad daris oo walaalo isku dhawaa waxa hadda maalmihii waayihii hadda sanadka u dambeeyay ka dhacay xuduudaha balad xaawo iyo Mandera hore uga dhicin xabad balaxaw ka timid Mandera ma soo geli jirin xabad Mandera ka timid balaxaw ma geli jirin laakiin hadda way dhacday Axmedow baana sabab u ahaa marka taas u sababeynaysaa yes aan soo laabto tan Kenya iyo xafada Isliin Cabdi Casiis aan ku soo laabana xafada Isliin dhankaas iyo Jubbaland aan ka soo laabana markaad fiiriso xafada Isliin waxay ka mid tahay xafadaha ugu ganacsiga badan magaalada Nairobi ganacsiga aad buu u ballaaran yahay waxaa jiraan dadyo wadooyinka ganacsada oo ganacsato yaryar ah xilli roobaad ayaa lagu jiraa qorshe ka duwan in martaana roobka markuu daan ay cararaan markuu feerin ay soo degaan ma u haystaan dadkaas wadada ku ganacsado runtii qorshaha hadda ay ku shaqeeyaan qorshe u dhaamo horta mar dhow looma heli karo sababtoo ah waa dad garab ku guurta ah oo masaakiin ah aan awoodin inay dukaamada ay kireystaan oo kira iska bixiyaan oo dhar fara badan ay dukaamaha dhigaan aan awoodin waay sida hadda ay ku shaqaystaan ayaga way ku qanacsan yihiin haddii faraha looga qaado oo markuu roobka imaadan ay cararaan bacahooda saartaan haddana usoo laabtaan haddii sidoo lagu dheri way jirtaa inay cariiri keenayaan oo wadada ay jaam ka dhigayaan oo si fiican aan loo mari karin laakiin haddana waxaa la yidhi tol
isma cariirsho tol isma Gacal cariirsho Ismaaciil. gacal isma cariirsho haa marka ila dadka Soomaalida oo dukaanleyda ah wax dhib uma arkaan dadka walaalahooda oo banaanka ku ganacsanaya wax ka raadsanaya marka in la siyaasadeeyo oo la damco in dadkaas la kiciyo ama wadada ay baneeyaan way fiicnaan lahayd xaafadda haday xaafad ballaaran noo ahaan lahayd in suuq ayaga u gaar ah loo sameeyo oo dowladda ay maalgeliso oo ilaa 1,000 dukaan 2,000 oo dukaan loo sameeyo laakiin waxaa hubaa haddii xataa 2,000 3,000 oo dukaan loo sameeyo weli kuwa wadada laga leexiyey inay kuwa kala bedeli doonaan sababtoo wadadaas in lagu ganacsado fursad waaye qof walbana fursadda uu rabaa waa tahay waxaa jira Koofi Gaduud team maxay qabtaan ayagu team Koofi Gaduud horta maanta waa ka xumahay koofidii ma soo qaadanin koofidaas guduudan teamkayga astaan bay u tahay dadkan kaga soocannahay waaga markii tartanka uu yimaadana waxaan rabnaa shacabkanaga iyo Soomaalida inay nagu aqoonsadaan teeda kale magacan Koofi Gaduud waa magac Soomaali ah waxaan rabnaa siyaasadda Kenya inaan magac Soomaaliyeed ku dhex marno oo annaga aan Soomaalida nala kasbanno Soomaalinimadana aan qiimo u yeelno Soomaalida xaafadda isii oo bahdilan yihiin Soomaalinimadooda ma soo bandhigi karaan waxaan rabnaa si xor oo bannaan oo bareer ah inuu qofka uu siyaasadda Kenya oga mid ahaado inuu Soomaali yahay asagoo Soomaalinimadiisa ilaashanayo waxaan jeclahay teamkanaga inuu noqdo haddii aan ku guuleysto kursiga qofka ugu horeeyey oo Soomaali ah oo baarlamaanka Kenya kaga khudbaya af Soomaali weli hore uma dhicin wadankana dastuurkiisa ma ogolo baarlamaanka in luqadda aan Ingiriis ama Soomaali ahayn looga khudbadeeyo laakiinse shuruucda waxay u yaalaan in la jibiyo laws are there to be broken shuruucda waxay u yaalaan in la jibiyo xataa ha noqoto hal kelmad oo afkayga ka soo baxdo hawada marto inaan shacabka Soomaaliyeed dareensiiyo Soomaalinimada kuwa Nairobi ku nool iyo Islii iyo kuwa North Eastern joogaba ay ku raaxaystaan cod Soomaali ah inuu baarlamaanka dhex yeero good teamkanaga haddaan usoo noqdo waxyaalaha aan qabanayno hadda bishan Ramadaan waxaan bilownay mashruuc la yiraahdo suxuuri waayeelka oo aan maadaama wadanka lockdown uu ku jiray oo maqaayadihii la xiray waxaan istusinay dadka waayeelka ah oo albergooyinka hoteelada loojimada yaryarka ku nool oo dad wax u kariya aan heli karin maqaayadihiina maadaama laga xiray kaafiyugiina ilaa 10 saac habeenimo uu ku egyahay inuu culays soo wajihi doono waayeelka marka mashruuc waxaan bilownay suxuuri waayeelka ah alxamdulilah caawa 22 bay noo noqonaysaa oo mashruuci aan wadno oo aan dadka guryahooda waayeelka guryahooda iyo hoteelada aan cuntadiyo karsan qamadigan sarreenka iyo caano yaan u karinaa yaan guryaha ugu geynaa ayadoo kulul oo si fiican loo package gareeyay yaan guryaha ugu geynaa ilaa hadda waxaa noo suura gashay ku dhawaad 1,000 suxuur inaan bixino 22 caawo 22 noota 22 habeen la soo dhaafay 1,000 saxan oo suxuur inaan bixino waxaa noo qorshaysan insha Allah aan ku rajeynaynaa inaan 500 oo kale ku darno inta 10 kan beri hadda ka dhiman waxaa kaloo noo qorshaysan insha Allah inaan 100 agoon ah inaan ciid siino teamkayga team Koofi Gaduud oo xaafadan aan ka soo aruurinay iyo nawaaxigeeda dadka muslimiinta oo baahida qabo inaan agoonta ka farxino oo ciid siino insha Allah team Koofi Gaduud waxa tiri baarlamaanka Soomaaliya baan uga hadli doonaa taas su'aal ugu soo laabanaya waxa jira lahjado kala duwan oo dalka Kenya looga hadlo oo ay tahay Kukiyada Masaayda qolo walba waxa leedahay lahjad Soomaaliya lahjad weeye markii aad Kenya joogto waa qayb ka tirsan Kenya oo lahjad Kenyaankii dadkii Soomaalida ayagu isku fahmaan laakiin luqadda dhexe waa Kiswahiliga iyo Englishka international ah dadka kale kagama hadlaan lahjadooda si adigu uga hadlaysaa marka aniga oo uga hadlaya sababta aniga Soomaali baa ahay ayagu Soomaali Masaay iyo Kikuyu iyo Turkana iyo Kalenjin so ayagu ma aha qolo kamid ah aniga Soomaali baa ahay sanku neeflana ana u sareeyo sidoo walaalkay Qays ku heesay ilka cas Qays inaad dadka ka duwanaato ama aad ka sareyso ama aad ka fiicnaato oo dadkaaga ee adiga kaagala qiimo bataan dadka kale wax oo lala yaabo ma waa wax soo dhaweyn mudan waay marka af Soomaaliya ku hadlaya anoo dareensiinayo shacabkayga Soomaalida ah
matalaada aan u haayo iyo jacaylka aan jeclahay iyo in ay helaan attentionka hadda ay haystaan mid ka weyn sababtoo waxaan aad u qiyaasayaa inay dood caafimaad leh abuuri doonto af soomaaligaas aan baarlamaanka kaga hadlayo musharaxiintu markay xilka doonayaan ballanqaadyo badan ay sameeyaan waxyaabo badan bay yidhahdaan kuwa xilka ku jira wax badan ay ku dhalayaan ila markaa banaanka joogto kursigii baad rabtaa dhaliilahaaga markii laga soo gudbo ballanqaadyadaada ma is oran karaa waa cabdicasiis wuxuu doonayaa keliya inuu ka warkacsado yani inuu kursigaas ku taga un waxba kama jiraan musharaxiinta hore waxba kagama duwan warkacsiga naftirkiisa haddii lagu ogolaado ceeb maaha haddii qofka aad ka farxiso oo wixii asaga niyadiisa ku jiray aad u sheegto oo wixii uu ku farxo oo dee wixii aad rabtay aad ka meel marsato waa raganimo waaye soomaalidana way isku qiraan qofka cadkiisa goosto way u qiraan marka ani ilama aha inaan wax weyn u geysanayo qofka Soomaaliga horta wadankan ku nool ama xaafadan isli ku nool actually baahi weyn ma qabo dad masaakiin way jiraan oo in la caawiyo u baahan mar walba laakiin dad yar waay xaafadan dadka ku nool 90% dad independent waay dad shaqaysta waay dad isku filan waay dad wax bartay waay waa dad runtii adduunka la haysta waay qofka asagoo isli joogo iyo ka warrama siyaasadaha Mareykanka Ingiriiska Scandinavia Soomaaliya Tanzania East Africa wax walbu la socdaa qofka Soomaaliga Kenyaanka kala saasma Kenyaanka kala xataa countiga ay ku nool yihiin wax weyn kama oga laakiin qofka Soomaaliga waa qof sophisticated oo qof aad u ilbaxsan waay kaliya wuxuu u baahan yahay in shucuurtiisa la dareensiiyo Soomaalinimada inuu xaafada xorriyad ku joogo in probox damba aan lagu ridanin in codkiisa uu xaafadan si oo Soomaalinimo ku jirto qof Soomaali inuu codeeyo oo magaciisa kood la yiraahdo oo dadka madowga ah ka soocan oo astaan Soomaaliyeed leh oo magac Soomaaliyeed ku meel maraya oo Soomaalida waxa ay raadinayaan dareenkaas waay xoolo ma raadinayaan muxuu ahaa yani wax adduunyo ku saabsan oo material ma raadinayaan Soomaalinimo waxay raadinayaan in xaafadan ay xorriyad ugu noolaadaan aan xabs laga dhigin dad oo sidii ariga loo kala gato kale aniga marka waxaan ku dadaalayaa waxa waaye Soomaalida inay xishmada ay mudan yihiin helaan sababtoo xaafadan isli waa xaafada yani qoondada saddexaad ugu tirada badan canshuurta laga qaado waa dakhliga wadanka macnaha qaybta saddexaad ay soo geliyaan canshuurta koowaad waxaa hogaaminaysa Mombasa Port waa dekada Mombasa number 2 waa Nairobi CBD townka Nairobi waa canshuurta labaad canshuurta saddexaad isli waay adoo waxaas oo canshuur wadanka ku bixinayo haddana inaa laga dhigo qof macnaha oo liito oo macnaha laga dhigo qof asaga dhanba iska fooseel ah actually hadda waxay imaanaysaaba qofka xataa sharciga haysto Kenyaanka in lagu dayo oo si loo gilgil karo loo gilgilo waxaan ognahay xaafadan in dadka loo isticmaalo barnaamijkan argagixisada qofkii la raba in la dhaco oo nin hadduu kula dhashay askari ah aad si fudud qofkan ku eedeyn kartid aad leedahay ninkan argagixiso aniga kula hadlaayay uu dhacday maadaama Axmed Madoobe aan ka hor imid maadaama dadkii xaafadan siyaasadeeda hogaaminaya oo Yuusuf Xasan uu kamid yahay cali masaarkii gardarrada ahaa oo ugu tageen aadan ducaale iyo Yuusuf Xasan iyo marxuumkii Yuusuf Xaaji Allah u naxariisto iyo marxuumkii kale odaygii Yaasiin Jaamac maqaayadan Kilimanjaro odayga iskale ay ugu tageen hiilo ilma adeeranimo darteed aan ka hor imid muuqaal aan ka duubay aan ku cambaareynaayo weliba ulajeedkayga focuska aan saaray Yuusuf Xasan maadaama xildhibaan Soomaaliyeed kambuunji laga soo doorto uu yahay Soomaaliyeed inuu u dhaxeeyo la rabay arinta Jubbaland lagu kala qaybsan yahay maadaama aan hadlay aniga naftirkayga waxaa la ii dhiibay kiis ah inaan ahay argagixiso oo terrorist case yaa lagu dacweeyey marka anigii saan wadanka u fahansan shuruucda fahansan nin siyaasi oo bareeray oo dadka inuu madax ka galo u bareeray ah haddii oo been ah qorta la ii gelin karo si la ii rikaateeyo maxaa moodaa qofka Soomaaliga oo $100,000 ama $50,000 ganacsi celinayo oo iska maskiinka oo wadanka wax badan oo ka socda aan fahansaneen in lagu harowsado magacaas terrorist marka aniga caburiskaas ay Soomaalida ku jiraan inaan ka qaado yaa u taaganahay raali noqo wali arintii Kenya ku jirna balse aniga waa ka dhawaysay Soomaaliya ku saabsan raali ka wadiyo
waxaa tiri yuusuf xasan iyo ducaale iyo qaab mataqaanaa beeladnimo ay ugu aadeen calamasarka axmedoobe adiga ma qaab beeladnimo aa uga soo horjeeda axmedoobe adiga haddaa rabto fikirkaas waa qaadan kartaa su-aal furnan ku adiga fikirkaada waa taas waa yeelan kartaa inkastoo nin weriye aad tahay oo aysan fiicneen inaad ku milanto siyaasadda aniga qaab jifo ugama soo horjeeda axmedoobe axmedoobe qof bini aadan oo caqli street ku fikiraya horta oo garab istaagi kara ma laha the guy is totally out of this world adoo raali ah cabdicasiis adoo raali ah calamasarkaas waxaa kasoo qayb galeen madaxweyneyaashii hore soomaaliya waxaa kasoo qayb galay madaxweynihii puntland waxaa kasoo qayb galay guddoomiyihii hore baarlamaanka soomaaliya shariif sheekh axmed shariif sakiin iyo madax kale maxaa u aragtaa keliya adi madaxdan waxaan u arkaa madaxdan lahaybta ah madaxda soomaalida ah waxay mucaarad ku yihiin farmaajo waxaa la yidhi the enemy of your enemy is your friend cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka farmaajo ayagoo ku xumeenayo way ka qayb geli karaan maya farmaajo ayagoo ku xumeenayo axmedoobe garab istaagi karaan waa mucaaradka waddankaas waayo siyaasadda waddankoodana xoray u yihiin meeshay rabaan inay ka fadhiistaan laakiin nimankan aan kaaga sheekeynayo oo ah axmed bay imaadeer leeyihiin oo lagu jafo ku yihiin kenyana ayaga keliya ma degaane waxaa dega wajeer dad baa dego qowmiyado kala badan oo fara badan isla dego oo xildhibaano kala duwan laga soo doortaa mandheere sidoo kale mushakal waaye ilaa 6 xildhibaan oo kala cida ah laga soo doortaa mandheere iyo wajeer soomaali ma aha miya soomaali kenya ma matali karaan miya maxaa ku kalifay dadkaas keliya inay diyaarad intay qaataan haddana fiiri waddanka ay tagayaan xukuumaddii markaas ka talinaysay xasan cali khayre uu hogaaminayay waxay soo saartay inaysan waddankan soo geli karin hawadooda airspace way jabiyeen xoogay ku galeen waxaa waaye waddan sovereign oo madax bannaan yay dalaq yidhaahdeen aniga marka qofka aan ku dhegay oo aan tunka qabtay wuxuu ahaa yuusuf xasan sababtoo yuusuf xasan waxaa u qabanayo yuusuf xasan anuu ii matalaa oo xildhibaan ii yahay anigana raalli kama ihi arrinta soomaaliya ka socoto oo lagu kala qaybsan yahay meesha la isla taageersan yahay soomaali weyn marka raadinayo qofka ha tago soomaalinimada ha ka mid noqdo laakiin waxyaalaha lagu kala qaybsan yahay inuu ka digtoonaado waaye aniga marka waxaan yuusuf ugu dhegay waxaa waaye codka soomaalida islii markuu qaadanayana wuxuu yidhahdaa soomaali baa ahay hal ii coday walaalkiin baa ahay oo soomaali meeshaan kama codeeyaan asaga tolkiisa ama cod jifa ma helo waa naqaanaa kulligood meelo kale codkooda geeyaan nodistan ay geeyaan waxa meeshaan jooga u codeeya waa soomaali mushakal ah oo nooc walba leh kuwa muqdisho ka yimid kuwa goboladan kale ka yimid yaa u codeysay asagoo marka soomaali oo dhan tunka saaran karo dhexdhexaadna u noqon karo inuu ina adeerkii haddana muhiim ma ahaan hadduu aadan ducaale tegay wuu ka maarmi kara asaga inuu oo feeska kenya waxaa matali lahaa aadan ducaale waxaa matali lahaa yuusuf xaaji oo nin maasha allah taariikh weyn waddankan ku leh yaa ku filnaa very unnecessary ahayd yuusuf inuu tripkaas aado yacni wax marmarsi uu ku haysta malaha aniga marka meeshaan ku dheganaa taasaana ku mutaysta in la xiro adiga waxaa tahay siyaasi soomaali kenyaan ah sidii yuusuf xasan uu yahay siyaasi soomaali kenyaan ah oo soomaalida u matiro adiga sharciga ku ogolaaday inaad axmedoobe kasoo horjeesato aad eedeyso oo aad wax ka sheegto yuusuf xasanna inuu taageero u diidayo muxuu yahay yuusuf xor buu u leeyahay inuu wuxuu rabana taageero wuxuu rabana ka hor yimaado laakiinse waddan xor ah oo asna ku dhiig ah kursiga uu ku fadhiyana uu magacaas dartiis ugu fadhiyo uu soomaaliya o dhan ku matalo ma jirto sabab ku kalifi karto inuu heer jifo uu hoos uga dhaco in adeerkii dartiis uu diyaarad u kiraysto uu kismaayo oga dego marka midaas yaana waqti badan ku dhuminin wuu ku khaldanaa shaluu ku khaldanaa maanta ku khaldan yahay calaamad giisa cad taabatay maalinta doorashadu uu soo istaagi doono haddaan nahay shacabka reer isli ka waran siyaasadda soomaaliya ee doorashooyinkeeda dowladda dhexe iyo siday qurquratooyinka uga jiraan doorashooyinka runtii qalaas badanaa ka jiro ismarin waa ka jiro waa la isku fahmi laayahay waxaa waaye aadaa la iskugu jiidjiidayaa nimanka mucaaradka ah
doorasho waa rabnaa ay leeyihiin model kasta oo la keenana way ka hor imaanayaan waxaa la isku dayay tii hore waa ogeed one man one vote waa la diiday mucaaradka iyo waxaa diiday labo maamul goboleedyada ka mid ah xaqay u leeyihiin inay diidaan wayna lagu qasban yahay in la qanciyo ilta macquul ah yacni inti lala mari karo in lala maro waa soo jeedinaya weliba qofka soomaaliga oo maanta siyaasadda soomaaliya raba inuu hogaamiyo aniga ma aaminsani in smooth run la siiyo yacni wax iska soco oo sida adiga arabta ha lagu sameeyo aniga ma qabo in lagu adkeeyo oo lala xisaabtamo oo madax laga galo oo korjeegtiin lagu sameeyo oo inta laga galo oo runtii la qodqodo si waxa uu u taagan yahay waxa uu aaminsan yahay rasmiga loo dhaadhaco aniga waan qabaa oo qofka dulqaadkiisa la tijaabiyo inta hadda muuqatana madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo la shaqeynayay shaqo aad u qurux badan ay qabteen xagga dhaqaalaha reformka amniga meel walba ha noqoto marka doorashada aniga waxaan aaminsanahay gacanta Soomaalida in loo daayo nimanka mucaaradka waa Soomaali dawladda waa Soomaali labadan maamul goboleed oo diidan arinta nooca uu Farmaajo wax wado waa Soomaali inta ayaga isjiidayaan ay isku tanaazulayaan ay isku buuqayaan ay goolasha kala dhashanayaan aniga xal baan u arkaa waana wax caafimaad ah waa u janjeeraayo waxaa la yidhi if you don't stand for something you will fall for anything haddaadan wax u istaagin wax walbaad ku dhexdhacaysaa yani meel walbaa gacmaha la gelaysaa Farmaajo iyo xukuumadihii uu soo dhisay tii Xasan Cali Khayraba ha ugu ammaan badnaato dadaa jira hadda maadaama Xasan Cali Khayre uu hadda mucaaradka ku jiro ku mucaaradaayo maadaama uu Farmaajo diidan yahay aniga laakiin Xasan Cali Khayre waxa uu aqoonsanahay inuu yahay very brilliant leader nin hogaamiye bisil inuu yahay waa laga yaabaa dhowr laba khalad xasaas camal inay ka dhaceen oo aniga aan kala talin lahaa inuusan sameynin oo uu shacbiyad badan ku heli lahaa siyaasaddiisana u toosin leed nabad iyo nolol dee niyaho wax oo waxaa la yidhi waa beriyey sacaba laguma qariyo way dadaaleen dadkaas meel fiican ay wax marinayaan waxayna mudan yihiin Soomaali meel kastay joogaan iftiinkaas yarkoo Soomaalida u iftiimay in la garab siiyo dawladda Kenya xoogaa Soomaaliya iyo Kenya xoogaa qolaafatin ka dhaxayso walaalaha siyaasiyiinta Soomaali Kenyaanka ah waxaan kula talinayaa inaysan kaga faa'iideysanin maadaama interest ay Soomaaliya ku leeyihiin aniga hadii Soomaaliyaan taageersanahay dawladdeeda siyaasi Kenyaanna waa ahay macnaha aniga positionka aniga taaganahay oo kale inay ka istaagaan oo Kenya lagula taliyo saaxiibtinimada walaaltinimada daris wanaagga iyo potentialka ay Soomaaliya leedahay inay ku qiimeyso oo maanta meesha ay taala aysan ku qiimeynin 30-40 years ago 40-50 years ago Somalia was better position than Kenya 40 sano 50 sano ka hor Soomaaliya ciidan ahaan dhaqaale ahaan bilic ahaan boqolkiiba Kenya ka fiicneed the same thing oo Soomaaliya ku dhacay haddii Uhuru Kikuyada iyo Jalwada iyo wax ay isku hayaan iyo siyaasadda ay isku bursanayaan hadday deyn waayaan waxay qarka u saaran yihiin meesha ay Soomaaliya gasho kale inay galaan hal shay afkaaga ka dhawaysaan rabaa inaan dib ku weydiiyo waxaa u malaysaa Cabdicasiis Koofi Gaduud maamaha Soomaalida ayaa jirta hebel afkiisa iyo dhegtiisa isma maqlaan adiga waxaad tihi aniga waxaan ahay siyaasi Soomaali Kenyan ah Soomaaliyaan taageersanahay siyaasiyiin kale oo Soomaali Kenyan ahna waxaad tihi way ku qaldanayeen inay taageeraan marka maxaa kula duwan tihiin waxaan ku kala duwannahay aniga Soomaali Kenyan ba ahay ayagana maxay yihiin ayagana waa Soomaali Kenyan laakiinse waxay doorbideen inay Soomaalidooda mucaaradaan aniga waxaan doorbiday Soomaali Kenyankayga inaan u shaqeeyo walaalahayga Soomaalida inaan garab istaago laakiin adiga Farmaajo hadda maxaad ku taageertaa waxaan ku taageerayaa hoggaanka wanaagsan dhaqaalaha oo waddanka uu kobciyey independency-ga uu waddanka uu ka dhigay siyaasaddiisa oo arrimaha beesha caalamka iyo faragelintoodii uu jaqalka iskaga qabtay militariga uu dhisay xuduudihii amnigooda uu sugay reemandeera maadaama aniga aan reemandeera ahay Farmaajo aadaan ugu bogsanahay sababtoo ah cadaadiskii uu saaray janan darteed
iyo dagaalankii uu la galay iyo sidii uu u cadaadiyey yaa waxay ka liftay inuu isku General hadda ugu dambeyntii inuu isdhiibo uu dowladda ku wareego. hadda in dowladda isku dhiib ma wanaagsan tahay. yes very good because reemandeerana way reeman iyada u galeelo raacnay. asaga loo raacanayaa iyo ninkii aqbalay. Dowladda hadda yes ayaga loo raacanaya taas ayaga loo raacanaya soo ma garan anaga laakiin dana noogu jirta reemandeer haddaan nahay carruurtanada iskoolkay aadayaan hoobiyihii nagala korridaya ma jiro beerihii naloo dhexgalayo oo lalahaa balaxa korkeedaan deganahay ma jirto. Cabdi Casiis Mandheera ka tagno Jubbaland Axmed Madow waad eedeysay dambiyo usoo jeedisay farmaajona waa taageertay Axmedow siyaasiyiinta la heebtaa waxaa tiri heeb ahaan ay u taageereen ma la oran karaa Cabdi Casiis heeb ahaan buu u taageerayaa farmaajo ma la dhihi karo sababtoo farmaajo Soomaaliya oo dhan aa taageersan come on my friend farmaajo dadka uu ka soo jeedo baarlamaanka waxay ku leeyihiin 14 xildhibaan laakiin taageerada do you listen 14 xildhibaan ay ku leeyihiin Soomaali baa dooratay farmaajo may dooranin reegada maysan dooran aad baan kaga mahadcelinayaa waa tahay daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijka wacyiga siyaasadda oo igu martiyaha saaxiibkay marna ah musharax xildhibaan xaafadda Soomaaliya oo badan Nairobi ee Siliin Cabdi Casiis Koofiyo Gaduud oo nin dhalinyaro ah isla markaasina wax badan ka og siyaasadda Soomaaliya iyo tan Kenya tan iyo intaan barnaamijka waxaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa aniga Xudayfa sidaas iyo أمان الله عبد الرزاق ما صدق سؤال شكرا